daraasad cusub oo qaran ayaa muujisay in xadgudubka ay booliiska u geystaan shacabka uu si ba'an uga jiro gudaha Kenya iyadoo 42.9 boqolkiiba dadkii la wareystay ay sheegeen in si toos ah loogu xadgudbay intii u dhaxaysay bishii Maarso 2022 ilaa bishii Maarso 2024 warbixintan oo ay soo saartay hay'adda International Justice Mission Kenya ee loo soo gaabsho IJM kuna salaysan su'aalo la weydiiyay 5,700 oo qof iyo 17 dood wadaaga ayaa muujisay muuqaal murugo leh oo ku saabsan awoodda ku takrifalka booliiska kalsooni darro nidaamka cadaaladda lagu qabo iyo isla xisaabtan la'aanta dhanka hay'adaha amniga xogta muhiimka ah iyada oo kooban waa in 42.9 boqolkiiba dadkii la wareystay ay sheegeen in xadgudub toos ah ay ciidanka booliiska kala kulmeen 9.6 boqolkiiba dadkii la wareystayna waxay sheegeen in ay marqaati ka ahaayeen dad lagu xadgudbay noocyada xadgudubyada ay warbixinta waxay u kala saartay ilaa iyo 3 heer mid dhexdhexaad ah oo dadka lagu sameeyay ay gaarayaan 85.2 boqolkiiba mid fudud oo 33.3 boqolkiiba ah tusaale ahaan cabsi gelin afka ah oo booliiska ay dadkaasi ku sameeyeen iyo mid culus oo ah 27.7 oo ah jirdil iyo tacadiye kale oo daran haddaba tacadiyadan lagu eedeynayo booliiska waxaa la sheegay in dadka ugu horeeyo ee lagu sameeyay inay yihiin ragga 61.4 boqolkiiba haweenka 8.5 boqolkiiba reer magaalka 75.9 boqolkiiba dadka reer miyiga 24.1 boqolkiiba dadka waxbarashada sare gaaray 7.67 boqolkiiba iyo dadka daadooda u dhaxayso 25 ilaa 34 sano oo ah kuwa ugu nugul tacadiyada ay booliiska u geystaan shacabka waxaana tiradooda lagu qiyaasay 24.4 boqolkiiba Kisumu ayaa gobolka ugu sareeya ee la sheegay in xadgudubyadu ay ka dhacaan dhammaan heerarka kala duwan kooxaha sida gaarka ah u halis badan waxaa ka mid ah dhalinyarada ganacsatada wadooyinka muslimiinta dumarka iyo dadka kale ee muuqaalka sida garka dhaadheer leh iyo kuwa aan iska jarinba timahooda ama kuwa timaha dhaadheer sita ee ragga ah comes from the confidence and the consent given by the people to the police, and so it's very important for the police to behave in a manner like which can inform that confidence and consent of the people. How many people are ready after seeing the threats and the killings to come and stand and say, yes, I was there and I saw that happen? If you're not even sure if tomorrow you'll be the next or the example that is shown. The standards of law, I know we have to keep by the evidentiary nature, but as well as we need to give support, more support to certain institutions to be able that this criminal justice system can actually see life.